Richard Ferron James waxa uu dhashay waddanka Mareykanka waxa uu la kulmay oo la soo darsay xanuuno badan taas oo khatar gelisay xaaladiisa caafimaad kadib 17 sano ah uu la shaqeynayay shirkadda caanka ah ee Coca-Cola kadib shirkadda Coca-Cola ka tagitaankeedii muddo gaaban waxa uu taraagle ama baabuurta waaweyn ka xeyn jiray isagoo sidoo kale ahaa karaani xilliyada qaarkoodna waxa uu nolol maalmeedkiisa ku dabari jiray lacagaha uu shaqada ka helo balse waxa mar kale uu noqday shaqo la'aan isagoo ku dabari jiray lacag kayd ahaa uu meel hore u dhigtay Richard waxaana uu dareemay xanuun badan oo dhanka dhabarka iyo waliba lugta bidaxa taasoo ka dhigtay mid dhutiya waxaana uu sidoo kale ogaaday in xabadka ay buro uga soo baxday markana waxa ay ku noqotay in uu wax uun sameeyo ugu dambeyn go'aan ayuu ku gaaray in uu dhaco bangiga Gastonia ee ku yaala magaalada New York ee caasimad ganacsiga ee waddanka Mareykanka waxaana ujeedkiisu ahaa in uu helo $1 lacagta Mareykanka kaliya bangigana uu u dhaco si loo xukumo kadibna uu u helo dabiib ama daweyn bilaasha gudaha xabsiga inta uu ku guda jiro Mr. Richard waxa uu yimid Gastonia waxaana uu qasnajigii u dhiibay warqad ogeysiisa taas uu ugu sheegay in $1 la siiyo isagoo ku cataabay in uu hubaysan yahay xabadna uu ku dhufanayo qasnajiga haddii uu san siinin $1 uu doonayo lacag ilaaliyaha ama qasnajiga xabsiga waxa uu sameeyay naxdin badan kadib telefoonka ayuu si hoose ugu diray ciidamada booliiska laakiin Richard ayaaba hore u sii ogaa in laamaha amniga la wargeliyay waxaanu iska fariistay mid ka mid ah kuraastii bangiga ee u dhaweyd isaga oo sugayay booliiska oo ay halkaas markii ay yimaadaanna isaga in ay xiraan u diyaar garoobay booliiska ayaana daqiiqada kadib waxay gaareen xabsiga Gastonia waxaana ay kaxeeyeen oo ay xireen Richardkii dhaca sameyn rabay ee goodinta isugu daray qasnajiga iyo dadka meesha joogay Richards oo rajeynayay in lagu xukumo muddo 3 sano ah ayaa waxa warbaahintu u sheegay in mar kale uu dhac sameyn doono haddii xukunka uu ku yaraado